السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdiraxiin Siciid Ducaale. waxaan doonayaa inaan halkan casharo ka bilaabo si toos uga bixi doonaa iyo si isku xigeenka 3 cisho 2 cisho ama maalintiiba soo noqon kara. casharadaasi waxa ay noqonayaan waa basic computer skills sida halkaan idinka muuqata. casharadaas ayaan doonayaa inaan idinka faa'iideeyo. waa basic computer skills. marka waxaad kala socon kartaan channelkaygaan ku leeyahay YouTube iyo sidoo kale Facebookgayga oo aan isna soo gelin doono marmar haddii uu Ilaahay ka dhigo. haddii aad doonaysid in aad baratid cilmigan computerka waxuu kaaga baahan yahay xoogaa dulqaad. wuu jilicsan yahay ma adka laakiin wuxuu kaa doonayaa inaad u sabirtid. computer marka laga hadlayo markiisa horeba waxa weeye waa qalab waxna aqbala waxna la gashan karo waxna lagala bixi karo. tilmaantaas uu leeyahay waxna waa lagala bixi karaa waxna waa la gashan karaa waana lagala bixi karaa. marka computerka waa qayb badan yahay laakiin inta ay ka siman yihiin dhammaantood waxa la yiraahdaa imika halka u jeedo monitor. waxa weeyaan waa monitor looks like television screen as well you see what's happening on your computer by using shadows and graphics with over 1 million colors. Much of what you see will appear in 3 dimension. monitorku waa muraayadan telefishinka ay waxaad ka maamulaysid iyo waxa ka socda si aad u arkaysid graphics-ka ha noqdo waxa dhex yaala oo dhan ha noqdo. qayb kale jirto iyadoo la yiraahdo CPU ama the tower CPU waa u jeedin qaybtaas weeye iyadana waxa ay qabataa waxa weeye central processing unit baa la yiraahdaa. waa qaybta heshiinka iyo ku shaqada ma garanaysaa dhaqaajinta computerka soo kicintiisa iyo waxaas oo dhan qaybo badan ayay ku shaqale ayay ka mid tahay. iyada waa qaybta keyboard la yiraahdo. keyboard waa wada taqaaniin qaybta keyboardka iyadana waxa weeye qaybtaas iyadana waa qayb muhiim ah. waa qaybta computerka uu ku shaqeeyo. waa keyboardka oo fahmaysaan idin sharaxayo. marka keyboard waa shaqooyin badan ayuu qabtaa oo aad u fara badan. marka keyboardku waa muhiim. is the one of the two ways input data on your computer. It has been modeled after traditional typewriter. waxa weeyaan waa qaybta inputka mobilkaaga computerkaaga wax laga geliyo. akhyaar iga raali hadda mobile dhaho mobiladan qaar u yaraa tataban jiray. marka keyboard waa computerka isagu qaybta mataqaana wuxuu leeyahay haddii waxa weeyaan waa qaybta inputka la yiraahdo. qayb kale ayaa jirta iyadoo la yiraahdo mouse oo jeedin mouse waxa weeyaan waa halka computerka laga maamulo ama waxa ay carcaraya laftiisa halka u jeedin mouse ayaa la yiraahdaa. marka mouse-ku isna waa cajiib waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay waa inputku isna ka mid yahay. marka labada qaybood ee computerka imika inta badan la yaqaan waxa weeyaan waa desktop iyo laptop. desktop iyo laptop waa u jeedin wax kala duwan yihiin. monitorku waa u jeedin display-ga waxa la sheegay. keyboardkuna waa halka CPU waa halka shiinka u jeedin halka yara guuxda xitaa marka computerka aad shidid. mouse-kuna waa kan oo de halka waa idinku u jeedo idin sharaxayo. waa qaybta laptopka ee badan la isticmaalo. kuwa guryaha la iska dhigtay desktop-yada isna monitorka waa u jeedin waa muraayada weyn ee TV-ga kala towerka ama CPU-ga central processor unit-kana waa ka waxa weeyaan waa heshiinka weyn halka ila xadka laga galiyo meeshaas ku dhow yahay. mouse-kuna isaga waa taqaan waa qaybta keyboard-kuna de waa kamba. marka computer the following things are important to consider when operating a computer system. How fast can it perform tasks? How much can data is stored? How many programs software can run simultaneously? xogta marka computer doonaysid inaad iibsatid maxaad waa inaad eegtaa imisa GB buu ka kooban yahay imisa program ayuu markiiba soo kicin karaa imisa ayuu sidee u dheeran karaa waxaas oo dhan taaskeeda u wada ordi karaa. marka waxaan sidee u shaqeeyaan waxaan inaga uma baahnayn inputka iyo outputka iyo mataqaana waa hardware iyo software. marka horta waxaan la keenay ilaa computerka markiisa hore laba qaybood ka kooban yahay. firstly laba qaybood ka kooban yahay waxa weeye qayb la yiraahdo application software iyo system software.
application software iyo system software maxay yihiin hadaba application software iyo system software wax kale ma aha waxa weeyaan halkaa ujeedin imika physical binka ama control panelka iyo networka iyo pc-ga ilaa abdulrahimka marka lagu daro intaas oo kale waxa la isku yiraahdaa computer software marka halaha system software maxaa system software loo yiri waxa weeyaan system software waxa loo yiri waa qaybihii computerku aan ka maarmin waa inuu computerku ku shaqeeyo waxa weeyaan waa khasab walaga maarmaan application software waa adigu kuwaad ku shubatay qasab maaha in lagu soo shubo waxa kamid ah Camtasia Mozilla Firefox kaas oo kale waa kamid labadaas kamid ah imika tusaale labadaas u jira iyo xagga sare labada u jeedin iyagana ee qaybaha Wondershare iyo Filmora iyo waxaas ay ku qoran yihiin laakiin maxaa lagu kala gartaa waxa lagu kala gartaa calaamadda yar waa u jeedin calaamadda yar aan farta ku fiiqay waa u jeedin calaamadda yar ee sare u jeeda ayaa lagu kala gartaa system software ku ma leh calaamadda laakiin application software ayaa calaamadda iska leh marka saas ayaa lagu kala garan karaa waa iska easy way marka casharka mar rabo soo dheeraado waxaan u gudbi doonaa qaybtan iyadna keyboardka oo aynu si toos ah u qaadan doono marka haddii aad rabtid inuu sii socdo casharku fadlan like subscribe iyo share haana hoosta ku soo qor waan u baahan inuu sii socdo waa aad badan islaamaya wana Cabdiraxiin